Osama waa wiil yar oo 14 jir ah. Hadda waxa uu ku nool yahay xarunta xanaanada agoonta ee Ditoorka Dare ee ku taal degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. Osama oo nooga warbixiyay noloshiisii hore iyo tan uu hadda ku nool yahay ayaa si gaar ah fariin ugu gudbiyay madaxda dalka, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo marwadiisa. Osama Cabdinuur Cali 14 sano Kadare xaruntan waxaa lagu xanaaneeyaa ciyaalka agoonta iyo ciyaalka darbi jiifta. waxaan imaaday 2 sano ka hor. waxaa laga soo waday Xamarweyne. waxaan ka qabanayay maraan darbi seexdo iyo maraan daroogis isticmaalo, maraan nin xoolihiisa qaato ayaa yahayd. noloshaydu wax badan ayaa iska bedelay xarunta markii la keenay. hadda waxaan leeyahay rajo oo waxaan leeyahay hami oo waxaan rabaa inaan noqdo madaxweynaha Farmaajo kale. madaxweynaha oo Farmaajo wuxuu ku noolay kuleej sidaan oo kaleeto, wuxuuna ogaay kuleejada wax alaala wax carruurta ayaga joogan oo ay u baahan yihiin. hadda waxaan rabnaa inuu asiga garabna siiyo dhibaatada kuleejka ay leedahay iyo wax kasta kuleejka looga baahan karo kulliye asiga soo arkay. hadii ay tahay dhanka cuntada, hadii ay tahay labis, hadii ay tahay suuli, hadii wax kasta oo qofka bini'aadamka noloshiisa maareey karo asiga asal hore asiga kuleej ayuu ku soo noolay. sidii madaxweyne asiga oo kale ayaa gacan qabtay madaxda dalka ka talinaysa asiga maadaama ay soo gacan qabatay. anagana waxaan ugu baahnaan lahayn inuu sidoo kale asiga noo gacan qabto maadaama oo ciyaalka isku jiraan ciyaal agoon ah iyo ciyaal darbi jiif ah. waxaan ka codsanaynaa asiga sidii oo heerkaas uu ku gaaray waxay eeday kuleen asiga waa la gacan qabtay dawladda iyo Soomaaliya gacan qabatay sida asiga loo gacan qabtay oo kale in ay noo gacan qabtaan. dadka anagoo kale ah iskugu jira darbi jiif iyo agoonta ciyaalka agoonta iskuna jira ma haysana waxna saacido waalid misanooyi aaba. waxaa maanta aabano ay Farmaajo iyo marwadiisa hooyano ah waxaan u baahanahay in ay gacan qabtaan.